waxaanu dawladda hoose ayaanu murduuci ka nahay oo dadka halkaa taagan arkaysaan ay mushtaki ka yihiin dawladda hoose waxaanu kala quusannay war xashiishka naga qaada waxa kamaradu haysaa meel walba tuuleen waa xashiish wadooyinkii dadku waa cashuur bixiye loo samayn lahaa waanu kala quusannay waxaanu kala quusannay noloshii aasaasiga ahayd shantii sariibadood ee ku yaallay xaafadaha Axmed Dhagax iyo 13 May shantiiba wax yar oo aan macno lahayn oo dayactir bay u xidhan yihiin war noo hagaajiye baanu kala quusannay saddexdaas sanadood iyo barka ay joogeen waxaanu kala quusannay laamiyada loogu jira miisaaniyada dawladda hoose ee aanu xaq u leenay xaafadaha kale laga dhisaayo nolol dhiso waxaanu kala quusannay security lightska magaalada xaafadda ee dadka nabadgelyada wax ka taraya hana loo sameeyo waxaas oo dhan markaanu kala quusannay waxay imika marayaan markay dantii guud soo dhameeyeen ee garoomadii carruurtu noogu ciyaar leed ay iibiyeen ee wax walba iibiyeen inay wadooyinkii dadku marayay ilaa Ingiriiskii soo taxnayna ay iibiyaan bay marayaan waa kuwa dadkii inta dumarkii la qaawiyay ee la xidhay ee rasaastii lala dhacay sandaqadaha waa ka gacanta ku hay Maxamed Warsame wax la aqbali kara maaha mana yeelayno si degdeg ah xukuumadda dhexe u soo fargelisay salaam leeyahay anigu wuxuu baan ku darayaa Soomaaliland waxay u soo dagaalantay nabadgelyo waxaynu halkaa u nimi inaynu nabadgelyo dhisno inaynu dadkeenni maatida rasaasta ula tagno ma yahayn meesha boqolaalka sanadigeedadeen ka kac haddii aanad lacag haysan solteekana waxaan leeyahay ninka meeyarka kolley magaalada meeyar uma wada tihid ee qayb baad meeyar u tahay waxa dawladda hoose ka dhashay waa beri baa u bilowday cadaalad darro waday gaaladu waxay yidhahdaan the down injustice solteeka waxaan leeyahay boqol jeer baanu kuu nimi aanu kaala hadalnay aanu kaala hadlay danta guud aanu kaala hadlay wadooyinka aanu kaala hadlay sariibadaha intii oo dhan waad iska dhegatirtay maanta waxaa noo cad inaanad meeyar aanad magaalada Hargeysa u wada ahayn aad magaalada Hargeysa u qaybisay laba qaybood aad qaybna u tahay qaybna aad u ahayn marka waxa leeyahay dawladda hoose sharci darrada aad wado mid soconaya maaha mid aadna halka ku joogaysa maaha xildhibaanada deegaankan ka tirsan iyo xildhibaanada kalena waxaan leeyahay war cadaaladda hal sugo bixi Hargeysa dawladda dhexana waxaan leeyahay war marka khalad yimaado nin burcaadi uu meeyar ka noqdo waa meeyarkii ugu xumaa ee Hargeysa soo mara 25 sano aynu joognay waa meeyarkii ugu xumaa ilaa 60kii ninka Hargeysa soo mara horaan uga ashkatoonay imankaanu ka ashkatoonaynaa mar saddexaadkii waanu ka ashkatoonaynaa haddii waxba laga qaban waayo war solteeko wake up solteeko waxaanu rabnaa wax kale maaha alla yaraa waxaanu rabnaa waa cadaalad waa kelmad qura waa justice doomiyahayo iyo Maxamed Cali arrinka meesha yaala ee ay u solteeka sameeyay waxa weey labadaa wado ee uu iibiyay imika waxa weeye waxa soo mari jiray xaafadda la yiraahdo Biibsiga xaafadda Isha Boorame Axmed Guray Cakaara intaasoo xaafadda waday u hayd waa wadooyinkii laga soo galiyay magaalada bal marka waaye inta iibiyeen dadkii laga xidhay dadka xagee la geenaya ma dadka mahawd u magaalista leeyahay xagga qabta waxa weeyaan nimayahow arrinka meesha yaala haddii aan hoos loo eegin oo dawladda dhexe aanay waxba ka qabanin dee dhibaatadeeday leedahay waxa weeyaan nimankan imika dawladda hoos haysta ee ku hagaagsan maaha laakiin waxa weeye solteeka iyo cidda la socota waxa weeyaan waa in wax laga qabtaa ninkan wadooyinkii u dambeeyay buu iibinayaa dantii guuda kala hadalkeeda daa xashiish magaalada kama xaadhayo wax kale uu qabanaya ma jirto dadana waxa weeyaan ma wada iibin iyo danguud iibin ayun baa lagu jiray 24 saacadood anigu waxaan leenahay dawladda dhexe wax ka qabato madaxweyne hadaan adigu soo fulinin naga qaba solteelko oo naga qaba Maxamed Casiya askartiisa ad iyo habeenna la rasaasayda waa naga haka ku hayna gacanta ee nala soo adeegsanayo ciidankuna dul yaal ee guryaha fadhi weynay ee caruurtayada eega weynay ee nala laayad ruuxda halkan laga wada